waxaan idinku baraarujinayaa inaad waqtiga qiimihiisa garataan oo intaad da'yartiin aad ka faa'iidaysataan si markaad gabowdaan aydaan qoomamo u heshin. haddaad maqasho maalqabeen, aqoon-yahan, caalim ama cid kastoo nolosha horumar iyo tadawar ka samaysay, iskama noqon waxa ay noqdeen waxa ay ku noqdeen ka faa'iidaysiga waqtiga iyo adeegsiga maskaxda. maalmo kooban waad ka faa'iidaysatay, xusuustoodu waxay kuu dhashaa farxad, halka maalmo kale oo kooban oo waqtigaaga ka mida oo kaa dayacmay xusuustoodu kuu dhasho murugo iyo qoomamo. sida xoolaha xero loogu ilaaliyo, ee hantida qasnad ama baan loogu ilaaliyo, ee sumcadda iyo sharafta dhowrsooni iyo dhaqan wanaagsan loogu ilaaliyo, waqtigiina ku ilaaliya dadaal, oo siday biyuhu bilaa midab, bilaa ur, bilaa dhadhan u yihiin, noloshu yaana idinka noqon bilaa tacab iyo bilaa dadaal. dadkuna laba nooc ayuunbay u qaybsamaan: qof rajo iyo damac leh iyo qof ujeeddo iyo qorshe leh. inta badanna waxay wax u hagaagaan ka qorshaha iyo ujeeddada leh. war haddaanaad lahayn ujeeddo iyo hadaf aad buugaagta u sidato oo aad u soo kallahaso oo aad wax u baranayso, ma yeelin kartid aragti aad ka midho dhaliso. wax kastoo bataana way jabaan oo way raqiisaan marka laga yimaado akhlaaqda iyo camalka wanaagsan. haddaad suuqa baabuur liina maanta soo geliso ood haddana berri soo geliso oo sahan dambe soo geliso, ay liintii suuqa qabsato, haddii 500 shilin la siinayay badashadeeda kadib waxaa laga yaabaa in 100 shilin la siiyo. wax kastaana sidaasay u jabaan marka laga reebo dhaqanka wanaagsan iyo acmaasha suuban. khayrka ugu weyn ee qofku naftiisa u sameeyaana waa inuu akhlaaq yeesho. qof aan aqoon lahayn oo aamusani wuxuu ka fiican yahay qof aqoon leh oo aan akhlaaq lahayn. sida geedka hadhka fiican leh dadku u jecel yihiin inay hoos fadhiistaan, ayay qofka wanaagsanna u jecel yihiin inay la rafiiqaan. afka wanaagsanna waxaa ka fiican dhaqanka wanaagsan. in dadku runta sheegisteeda kugu nacaanna waxa ka xun in beenta sheegisteeda ay kugu jeclaadaan. siday cagtaadu dhulka meesha boodhka leh raad ugaga tegayso, ayuu dhawaqa iyo codka afkaaga ka soo baxayaa dhagaha dadka saamayn ugu yeelanaya. markaa ha isku dayin inaad codkaaga kor u qaaddo oo aad qayliso. waxaad se isku daydaa inaad habfikirkaaga kor u qaaddo. mar kastood habfikirkaaga kor u qaaddana waxaa isbeddelaya habdhaqankaaga. mar kastoo habdhaqankaagu isbeddelana waxaa isbeddelaya habnololeedkaaga. dadkuna intay aqliga ka fikiraan waxaa ka badan intay indhaha ka fikiraan. noloshu ma dhammaato, balse way isbeddeshaa. fursaduhuna ma qarsoomaan, balse way dayacmaan. 7 maalmood ee toddobaadka ku jira miyay kaa wada farxinayaan? sow maalin kugu adag iyo maalin kuu wanaagsan bay yeelan maayaan. sidaanay 7 maalmood ee toddobaadka ku jira kuu wada raalli gelinayn, ayaanay dadkuna kuu wada raalli gelinayne ha u fiirfiirsan. qof kastana ku ixtiraan dhaqankiisa, hana ka doonin dabeecad isku wada mida, waayo ma jirto dawo dadkoo dhan si isku mida u wada dawaysaa iyagoo xanuunkoodu kala duwan yahay. haddaad iminka hawl wanaagsan qabato, dadku ma ilaawayaan hawsha wanaagsan ee aad qabatay, mana xasuusanayaan waqtiga aad ku qabatay intuu leekaa iyo dhibta aad ka soo martay. sidaa darteed iska ilaali fudaydka iyo degdega si hawl kastood qabataa u wanaagsanaato. waxaa laga yaabaa inay idinku jiraan inamo farshaxanka iyo sawir-gamceedka ku fiicani. haddiiba ay dhacdo oo lagu yidhaa bal doqonnimadu siday u eeg tahay sawir ku muuji, waa suuragal inay kugu adkaato sidaad u ekaysiin lahayd. laakiin doqonnimadii iyadoo da'yar oo aan daalayn oo aan nasanayn ayay 24 saacadood ku soo hormartaa. mar haddii baraha bulshada ay ku murmayaan 20 jirro ku doodaya reerkayagaa reerkiina ka wanaagsan, reerkayagaa reerkiina ka wanaagsan, reerkayagaa reerkiina ka wanaagsan. noloshu ma dhammaato, balse way isbeddeshaa. fursaduhuna ma qarsoomaan,
balse way dayacmaa